Bismillahirrahmanirrahiim. Daawadayaal halkani waa Boston News. Waxaad ku soo dhawaataan falanqayn toos ah oo aynu ku falanqaynayno xidiga fanaaniinta dad badan ka qayliyeen. Kani waa Dirisla Cabdi, wiil dhalinyaro oo ku nool wadanka Australia. Magaciisu waa Cabdirasaaq oo ah wiil dhalinyaro oo YouTuber ah ayaa waxa uu falanqayntiisa ay la yaabaan dad badan. Falanqayntaasi oo ku saabsan hadba markaasi wixii anshax xumaa oo ka hor imaanaya diinteena suuban. Dirisla Cabdi badana wuxuu reaction ka bixiyaa heesaha nooca loo yaqaan ha markii fankii ay ku yaaceen dad badan aan u qalmin inay fanaaniin noqdaan. Dirisla Cabdina wuxuu la soo baxay ayatiinkiisa ah inuu heesaha badana oo aan u qalmin hees inuu dhaho ha. Dirisla Cabdi oo ku soo caanbaxay shaar cad oo uu soo xiran jiray ayaa dadku waxay badana ku caan jireen inuu curyaan yahay, balse marar badan oo uu isku dayay inuu dadka ka qanciyo curyaannimadiisa ayaa waxa uu sameeyay vlogyo kala duwan. Waxaana ugu dambeeyay vlogii ugu dambeeyay oo hadda safarka uu dibadda ku joogo. Dirisla Cabdi oo wiil dhalinyaro ayaa wuxuu badana fadeexad kala duldhacaa ragga heesaha ku ciyaara iyo dumarka isa soo qaawiya. Dinahan ma banaana inay gabar Soomaaliyeed ay soo qaawiso, balse taasi waxay la micno tahay inuu Dirisla Cabdi uu yahay ninka firfircoon dhalinta kale, kaasi oo mar walba reaction uga bixiya si ay iskaga daayaan dadka jecel inay heesaha qaaqaawan soo qaadaan. Dirisla Cabdi oo ah marka uu reaction ka bixinayo inuu qofka uusan bartilmaameedsan family ahaan iyo qoys ahaan oo markaasi reaction ka ku dul hehaabanayo waxa uu marka qofkaasi uu sameynayo. Taasina waxay la micno tahay inuusan la mid ahayn dhalinta kale oo marka ay qof wax ka sheegayaan ku dul hehaabta family-ga iyo wax markaasi aan joogin iyo qabiil. Dirisla Cabdi waa wiil dhalinyaro oo u muuqda mustaqbal ifaayo inuu YouTube-ka ka sameeyay asbuucyo ka hor ama bilo ka hor ayuu ku soo bandhigay bartiisa YouTube xadiga lacageed uu YouTube-ka ka sameeyay. Taasi oo ay la micno tahay inuu Dirisla Cabdi yahay wiil dhalinyaro oo firfircoon oo barta YouTube ka sameeyo lacag gaaraysa aad u badan. Marar fara badan ayuu Dirisla Cabdi soo bandhigay inuusan relationship lahayn, taasi oo ay la micno tahay inuusan jacayl sameynin. Barnaamijka Boston News ifiyaha dadka wax ku oolka bulshada intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa. Barnaamijkani waa barnaamij aan ugu talagalnay haldoorka bulshada iyo waxyaabaha ay ku takhasuseen inaan idiin soo gudbino.